cadaado taariikh iyo tagta waxay u leeyihiin inay tala ku nool yihiin marka waxaan leeyahay reer tala ku noolow tub dheer waxaan u soo maray inaan tashanno kow dhaha wada tashanno laba dhaha isla talinno saddex dhaha tawfiiq gaarna afar dhaha isku tashanno keligeen shan dhaha reer tala ku noolow tub dheer waxaan u soo maray tala loo dhan yahay iyo inaan taagno tiir adag turxaan bixinno tabashada galmudug taam ah dhisno uu taageero dhammaan shacabka reer galmudug waxaan rabaa inaan anigoo ku hadlaaya magaca dowladda federaalka kayga iyo dhammaan xubnaha dowladda oo madaxweynuhu ugu horeeyo inaan reer cadaado uga mahad celiyo kaalintii mugga lahayd ay ka qaateen in la udub dhigo dowlad goboleedka galmudug waxaan idinkaga mahad celinaynaa inaad soomaaliya oo dhan isugu keenteen cadaado laga dhisay dowlad goboleed marti soorteen soo dhoweyseen dad badan oo anigu galabtaan ugu dambeeyo waxaanu nimid inaan sii xoojinno aasaaskii aad dhigteen sii horu marinno sii anba qaadno sidaas daraaddeed ayaan idinkugu nimid inaan idinla tashanno si aan ugu heshiinno tallaabadan tallaabada ku xigta mowqifka dowladda federaalka ee ku aadan galmudug waxa uu yahay sida madaxweyne xaaf uu sheegay marar badan in la dhammaystiro dhammaan hay-adaha dawliga ah ee dowlad goboleedka galmudug in la dhammaystiro galmudug reer galmudug oo dhan ay ka helaan adeegyaday u baahan yihiin laakiin si loo dhammaystiro ma ahan dowladda federaalka cidda dhammaystiraysa waa reer galmudug waa idinka annagu idinkaan idinla shaqaynaynaa ma aha inaad idinku annaga nala shaqaynaysaan sababtoo ah galmudug waa idinka ma ahan annaga dulqaad dheer ayaad bixiseen dadaalna waad bixiseen haddii aad tihiin reer cadaado waad ku ammaanan-tihiin dulqaadkii iyo dadaalkii aad bixiseen waa inuu midho dhalaa maadaama khibraddii aad leedihiin waxaan idinkala shaqaynaynaa inaan idinkala midho dhalinno waa idinka og soomaalidu inay ku maamaado roob inta uu da-ayo ayaa la doogtaa dhammaan dadka reer galmudug waxay u soo diyaar garoobeen in haddii wax khilaafa uu ka dhex jiray galmudug la xalliyo la isu keeno ummadda laga wada hadlo la sameeyo nidaam shaqaynaya
oo ay reer galmudug u dhan yihiin cidina aanay cid sadbursi ku samaynin oo dadka reer galmudug iyagu ay go'aanka iska leeyihiin waxaan u mahad celinayaa madaxweyne xaaf oo ku bixiyey xoog iyo wakhti iyo maskax oo bixiyey dulqaad dheer oo ka shaqeeyey inuu sii horumariyo galmudug oo ka shaqeeyey dib u heshiisiin waxaan uga mahad celinayaa inuu ku baaqay in galmudug ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah